بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجكeenii dhabka hadal qaybtan waxaan ku dul istaagi doonaa arrimaha iskhilaafsan ee ka socda gudaha Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo dabcan aad moodo in ay meeshii ugu inkaareyd ama ugu khatarsanayd ay marayso sidaad la socotaanba waddanka Soomaaliya waxa taagnayd xilligiisii doorashooyinka hadday noqon lahayd baarlamaanka iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha oo bisha labaad ee sanadkan bilowgeeda sanadka soo socda idhaahda bilowgeeda lagu wado in ay qabsoonto waxaa lagu guda jiray xilligii ay xaqa dastuuriga ahayd in la qabto doorashooyinka baarlamaanka oo aad moodo in ay soo dhammaatay xilligii doorashooyinka baarlamaanka labadiisa aqalka sare iyo aqalka hoose ama golaha shacabka la qaban lahaa waa la soo gudbay ama waa laga soo gudbay waxaana la gaadhay 27ka bisha December ee sanada 2020 maalintaasi oo gebi ahaanba uu ku eg yahay xilhaynta baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa gole oo dabcan ay maalintaasi kaga eg tahay 27ka bishii December ee sanadii 2016 ayaa la dhaariyay mudanayaasha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya 27kiina waxay ku ekayd maanta waxaanad moodaa iyada oo aan waxba heshiis lagu ahayn in uu xilhayntii ka dhamaatay ama xilkii uu ka dhamaaday baarlamaankii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaynu eegi doonaa xagee looga dhaqaaqayaa meeshan haatan la taagan yahay maadaama oo baarlamaankii ama hay'adii ugu weyneyd ee sharci dejinta dawladda federaalka Soomaaliya oo xilkii gebi ahaanba ka dhamaaday iyada oo wax haba yaraatee heshiis lagu yaayna aysan jirin marka la eego arrimaha doorashooyinka khilaafaadkii ka jirayna wax la xalliyay aysan jirin dhanka kale guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ayaa iyaguna soo saaray dhowr iyo 20 saacadood ka hor habraac ay sheegeen in ay u direen maamul goboleedyada isla markaasina ay ku amreen in ay ku dhaqmaan sida ugu dhaqso badan ay ku soo doortaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimahaasi ayaynu la faguri doonaa waxa ay la jooga jaamac galad waan ku soo dhaweynayaa kadibna bal waxaad jaamacow aniga iyo ummadda Soomaaliyeed baa u ifisaa waan ognahay xaaladda Soomaaliya waa isdiidan tahay murano badan baa jira baarlamaankiina maanta kaga akaa xilhayntii sida wax u socdaan بسم الله الرحمن الرحيم نور والسلام يا أديك iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed inta haatan sida tooska aan ula socotay iyo saaxiibada dib nagaga soo biiri doonaba waxaan leenahay meel kasta oo joogtaan salaamullaahi calaykum inta kadib warunta nuurow maanta ayay ku ekayd xilligii xilhaynta ama ba xilligii loo igmaday baarlamaanka dalka Soomaaliya labadiisa aqal uu waqtigu kaga ekaa qorshuhuna uu ahaa maanta oo kale in la helo yacni baarlamaankii bedeli lahaa in uu diyaarsan yahay oo maxaan ku dhahdaa fadhigiisii koobaad uu maanta isugu yimaado oo maxaan ku dhahdaa uu si toos ah uu hawlihiisa u bilaabo nasiib darro taasi maanay dhicin baarlamaankii marka waxaa dhacday iyada oo aanay jirin dalkii wax doorasho ah oo ka socota iyada oo aanay jirin wax heshiis lagu yahay iyada oo siyaasad ahaan ay sii kala fogaanayaan dadkii maaragtay damacu uu kaga jiray hogaaminta dalka Soomaaliya in maxaan ku dhahdaa waqtigii baarlamaanku uu dhamaaday meeshana uu ka baxay arrintaasi marka waxa kale oo daba socota oo daba taagan xilligii golaha xukuumadda ama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligiisii ayaa isna ku xiga oo aan filayo wax ka yar 40 maalmood ama maartay 40 maalmoodba inay u harsan tahay sida ay dooniba ha noqoto marka la raacayo dastuurka dalka Soomaaliya waxa jira xeer hoosaad uu dastuurku ogol yahay oo baarlamaanku uu leeyahay kaasi oo maaragtay sheegaya baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya waxa bedeli kara baarlamaan kale oo la soo doortay yaa bedeli kara taasi marka waxay muujinaysaa ama maaragtay caddaynaysaa in baarlamaankani uu xilka sii haynayo tan iyo inta laga helayo baarlamaan bedela marka su'aalaha marka meesha imaanaya waxay yihiin awoodaha ay yeelanayaan maxay yihiin mushaarka iska qaadanayaan oo waxay noqonayaan dad maaragtay canjeeradooda iska maaragtay raadsado oo aan wax kala dan ka gelin dad waxay noqon doonaan
isku daya wixii horey uga fashilmay intii ay baarlamaanka tobnaad ahaayeen ilaa baarlamaankii tobnaad xilkiisii iyo waqtigii u cayinaa waa dhammaaday waqtigan waxay noqon doonaan kuwa isku daya in ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed badbaadiyaan oo ay qaataan go'aamo masiiri ah oo ummadda Soomaaliyeed u horseedi kara marxaladda maanta ay joogto in ay kaga gudubto mise waxay noqon doonaan iska sidii kuwii hore ay markii hore ay ahaayeen marka baarlamaanku waa maxaan ku idhaahdaato waa wakiiladii shacabka Soomaaliyeed haddii ay awoodooda isticmaalayaan waa awoodda ugu sarreysa ee dalka ee dhinaca maxaan ku idhaahdaato sharciga iyo nidaamka waxay xaq u leeyihiin madaxweynaha inay xilka ka qaadaan oo ay meesha dhaafiyaan cid kalena ay keenaan waxay xaq u leeyihiin kolba tallaabo kaste oo dastuuri ah in ay qaadaan oo maxaan ku idhaahdaato tallaabooyin kale oo ka baxsan dastuurka cid qaadi karta ma jiraan iyagu waxay samayn karaan sharci ay ku badbaadinayaan dalka Soomaaliya oo maxaan ku dhahayto ay haatan yani xaaladiisu u muuqato mid aan la saadaalin karin inkasta oo aad moodo yani madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gebiyahanba xaqiisa baarlamaanka inuu ka dhintay oo uu dhawaan soo saaray yani wareegto uu ku maaragtayto sheegayo in uu ku kala diray in uu ku hakiyay dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii iyo hawlihii baarlamaanka gaar ahaan dib u eegista dastuurka iyo maaragtayto arrimaha sharciga uu hakin ugu sameeyay taasi oo maaragtayto marka la turjuma noqonaysa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meesha uu ka saaray jiritaankii baarlamaanka shaqadii baarlamaankana uu isagu qabanayo waxa kaliya ee maxaan ku idhaahdaato hadda la dhihi karo yani dalka Soomaaliya maamul ahaan ama nidaam ahaan uu u jiraana waxa weeyaan uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda isagu booskii baarlamaanka iyo dhan walba isagu maartay isku tirinaya inuu yahay sababtoo ah haddii uu leeyahay baarlamaanku waa shaqaynaya oo waajibaadkiisu sii gudanaya de inta warqadii qaran iska soo qaato maxaan ku idhaahdaato shaqadii baarlamaanka anaa qabanaya oo joojinaya maxaan ku idhaahdaato hawlahoodii yani ma aanu dhaheen say dooniba ha noqoto baarlamaanka Soomaaliya waqtigiisii waa dhammaaday maanta dalka Soomaaliya malaha baarlamaan ma jirto yani hay'ad sharci dejineed oo si rasmi ah maanta dalka Soomaaliya uga jirta haddii ay sii kororsan lahaayeenna de iyaga oo xilligoodii uu dhammaaday oo aan jirinba oo maanta yani xildhibaan walba waqtigiisu wuxuu ku ekaa maanta ayuu ku ekaa okay xildhibaan waqtigiisii maanta ku ekaa ama si guudba baarlamaankii uu waqtigiisu maanta ugu ekaa waxay ahayd in ay inta aan la gaarin xilliga ay ka sii baaraan degaan oo maxaan ku idhaahdaato inta awoodda ay leeyihiin ay dhahaan maaragtayto intaasaan ku darsanay oo si sharciya ay maaragtayto u meel mariyaan laakiin hadda maba jiraanba magac ahaan mooyaane yani awood ahaan waxa ay baarlamaanku ahaayeen dastuurku ahaa xilliguu u gooyey xilligoodii waa dhammaaday mar haddii xilligaa la gaadho iyaga oo aan iyagu samaynin sharci yani maaragtayto ay ku xalaalaysanayaan si joogistooda anigu ma garanayo si ay ku sii joogayaan marka kolley arrimaha Soomaaliya waa la jiifiyaana bannaan inkasta oo guddoonka baarlamaanku aysan ahayn guddoon baarlamaan ee ay yihiin shakhsiyaad maaragtayto milkiilayaal laga yahay oo aan maxaan ku idhaahdaato naftoodana wax u qabanaynin cid kalena aan waxba ka sugaynin oo kolba sidii uu maaragtay wixii la dhaho uu maaragtay ku go'an ay ahaayeen haddana bal waan arkaynaa waxa ka soo baxa laakiin baarlamaankii Soomaaliya iyaga oo aan muddo kororsi samaynin ayay meesha ka baxeen oo ay banneeyeen taasina waxa ay inoo sheegaysaa maanta inaan jirin baarlamaan Soomaaliyeed oo ama muddo kororsaday ama sharci ku jooga ee waqtigoodii uu dhammaaday iyagoo aan muddo kororsanin waad mahadsantahay aad baad mahadsantahay jaamac waayay sharciyan marka la fiiriyo baarlamaankii sida inoo muuqata sawirkan ka muuqata waa 27 December 2016 sawirkani oo ah maalintii la dhaariyay mudanayaasha baarlamaanka ee haatan u ahaa baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidaa darteed 27 oo maanta ayay dhaartoodii ku ekayd xileyntooda muddada 4 sano maanta ayay kaga ekayd haddii 4 sano ay maanta ku eg tahay intii ka horeysana saad sheegtay aysan soo samaynin wax muddo kororsiya oo sharciyan ay maaragtay u lahaayeen inay sameeyaan bal muddo kordhin muxuu noqonayaa sharciyan maxay noqonayaan hadda ma xubno shacabka ka mid ay noqonayaan ma baarlamaan sii fadhiyo oo maaragtay filla Hargeysa ka sii taliyay noqonayaan
muxuu noqonayaa doorka xubnaha baarlamaanka sagaalaad aan idhaahdo baarlamaanka tobnaad niyo horta waa su'aal meesha ku jirta laakiin aragtida aniga ay muuqatay iyo sida maaragtay to horay guddoonka baarlamaanka uu u sheegay waxa weeyaan xeer hoosaadka baarlamaanka waxaa ku qoran yani in maaragtay to inta laga helayo baarlamaan bedela inay iyagu baarlamaan sii ahaanayaan ma aha dastuuriyan ee waa xeer hoosaadka baarlamaanka yay ku qoran tahay okay say marka ku sii ahaan karaan may iska sii joogayaan oo waxay noqonayaan kuwa iska fadhiya meeshooda mise waxay u baahanayaan in maaragtay to cod loo qaado oo la yiraahdo inaan sii ahaano baarlamaanka tobnaad oo inta baarlamaanka ina bedeli lahaa la helayo yani inaga aan sii maaragtay joogno meeshii baarlamaanka yaa intee u codaysay intee diidan miyaa la dhihi ma sidooday ku yihiin oo maxaan ku idhahdaa to dabadu ka furnaanaya maxaan ku idhahdaa to waqtigu waa yani waxyaabaha maaragtay aan kala caddayn weeye meesha waxaa ku qoran baarlamaanka inta laga helayo baarlamaan bedela isaga ayaa sii ahaanaya maxaan ku idhahdaa to baarlamaanka Soomaaliya oo hawlaha maaragtay baarlamaanka looga baahan yahay sii gudanaya awoodda ay yeelanayaan maxay tahay marka waa su'aalaha maaragtay ay tahay kulli dadka sharci aqoonta ah in ay ka jawaabaan laakiin si anigu kulli sida ii muuqata guddoonka baarlamaanka mursal waxa uu sheegay ayaan dhexdaas in baarlamaankani uu sii ahaanayo baarlamaanka Soomaaliya inta laga helayo baarlamaankii bedeli lahaa ee 11aad ma aanu marka sidii xeer hoosaadka ay ugu qoreed buu isaga yiri isaguna ma aanu sheegin yani in inta kala fadhiga isugu yimaadaan labada gole ee baarlamaan ay codaynayaan in aqalka hoose keligii uu codaynayo in aqalka sare keligii isna uu codaysanayo iyo maxaan ku idhahdaa in sidooda ay ku sii ahaanayaan baarlamaanka tobnaad sababtoo ah sidooda inay baarlamaanka tobnaad ku sii ahaadaan suuragal ma aha oo waxaan suuragal ka dhigaynin dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waqti cayiman siiyay baarlamaanka tobnaad ama baarlamaanka sidiisaba xilligu u qabtaa marka xilligaasi uu dastuurku qabtay xeer hoosaadka dastuurka ka weyn marka intaan xilligii la gaarin in la sii sharciyeeyo baarlamaankii oo la sii siiyo mandate xilli go'an leh oo ah intaas oo bilood ayaa maaragtay yaan ku darsanay oo inta ah ay ku qabsoomi karto doorasho laguna heli karo baarlamaankii bedela taasa marka yaa macquul ahay tiina ma aysan dhicin oo waxa isku soo hagaagay xilli waqtigii dhamaaday oo baarlamaankii meeshii uu ka waqtigii uu ka dhamaaday baarlamaankiina aanay muddo kororsanin maxaan ku idhahdaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajana iyagoo uu taagan uu dushooda maxaan ku idhahdaa uu saxiixay dhimashadooda oo uu ku yiri maxaan ku idhahdaa saacadan laga bilaabo hawshoodii anaa qabanaya marka inkasta oo aan cidiba dastuur ku dhaqmin oo guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka naftirkooda iyo maxamed cabdullaahi farmaajo intuba ay yihiin kuwa maaragtay dastuurka ay wax ku ahaayeen kuwa garab socda haddana inay iska garab socodkii maaragtay ku sii socdaan oo la jiifiyaana bannaan ay kaga dhigaan oo markii shirka garowe uu soo dhamaado ay iska dhahaan maaragtay intay isugu yimaadaan meeshii ay ku shireeyeen inay dhahaan waxaan ku darsanay 6 bilood ama 2 sano ama sanad baan ku darsanay in ay dhahaan يعني wax si maaragtay la sii baciidsan kara maaha marka wax Soomaaliya ka jiro oo dhan ba waxay iska yihiin wax iska jaantaar rogan ah oo wala waliba iyadu sida ay doonto ay maaragtay ay u fasiranayso talaabooyinkii maaragtay dawladnimada sababtoo ah dalku ma laha maxkamad dastuuriya ma laha mar hadduna dalku maxkamad dastuuriya lahayn nin walba isaga isu maxkamada nin walba isaga isu garsoora nin walba isaga isu xeer ilaaliya nin maaragtay to la xisaabtami kara ma jiro marka waxa weeyaan wuxuu waa jaantaar rogan weeye maxkamad dastuuriya iyo macaahidii kale ee dawliga ahaa oo dhan baan dhisnayn marka xaqiiqiyan waxay tahay in xaaladda maaragtay dalka Soomaaliya ay maaragtay tahay mid aan la saadaalin karin oo wax kastaba ay ka suura galaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajana doorashadan iyo waxanba waxaad moodaa inaysan maaragtay dhowdaba ma dhaadhacsana ay uga dhigan tahay oo uu wixiisa uu iska walaaqanayo kuwanina maaragtay iyagoo fadhiyo waagu ku bariyay bal waan dhowraynaa meesha ay wax ka maaragtay ay wax ku biyo shubtaan iyo sida ay wax noqdaan laakiin haatan Soomaaliya malaha wax baarlamaana mid ku meel gaara iyo mid maaragtay ka meel gaaraba ma jiraan hadda baarlamaankii hore waqtigiisii uu dhamaaday iyaga oo aan xilli ku darsanin oo aan si sharciya inta u doodeen cod qaadeen aan go'aaminin xilliga ay sii ahaanayaan baarlamaanka tobnaad ama ay sii ahaanayaan baarlamaan meel ku gaara ma ayna cadaynin sidaa daraaddeed baarlamaanka waqtigiisii wuu dhamaaday
iyada oo aanay maaragtay wax dood sharci aysan ka yeelanin baarlamaanku waxa uu noqonayo firaaqa maaragtay soo wajahan iyo qaabka ay u buuxinayaan marka waxaa laga yaabaa inay iska niyeysteen dee hadalkii mursal uu ku lahaa maxaan ku dhahaa baarlamaanka tobnaad baa sii joogaya inta laga helayo baarlamaan koob iyo tobnaad marka baarlamaanka tobnaad dee waqtiguu lahaa waqtigiisii waa dhammaaday sii joogistoodu ma 4 sano kala ma 40 sana ma 2 sana ma 3 biloodba ma 6 biloodba waa sii joogaynaa waa mahadsantahay aad baad mahadsan tahay mid ka mid ah daawadayaasheennu wuxuu leeyahay saana fiican oo in Soomaali xoog loogu taliya waxaan ahayn dawladnimo laguma heli karo ma isleedahay haddii baarlamaankii meesha ka baxay waddanka in tala military lagu soo rogo oo xoog lagu hayo way habboon tahay nuurow saaxiibkaas waxaan leeyahay haddii xoog military cid wax ku haysanayso allah u naxariistay maxamed siyaad barre wax ku haysan lahaa marka macdallaahi mid aan maxaan ku idhaahdaato wax uu meesha maaragtay ku hayaba aysan jirin oo ay ilaalinayaan ciidan shisheeye Ugandese ay ku xeeran yihiin yaa maaragtay xoog wax ku maamuli kara anigu aragtidaas ma qabo ummadda Soomaaliyeedna xilli xoog lagu maamuli karaahi waxaan aaminsanahay inaysan joogin caqliga bini aadamku waa kala garaad oo qof walba garaadkiisa waxbuu siin karaa waa iska suuragal in dad iska dhaadhiciyaan iyadoo ay AMISOM joogto oo ciidamadii Uganda iyo Rwanda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia ay dalka dhooban yihiin oo ay ka maxaan ku idhahdaa dawladdiiba ay ilaalinayaan oo dawladdu aanay maxaan ku idhahdaa ammaanka aeroportka xitaa aysan ku aadin oo meeshay ku shaqeynaysaba ammaankeedii ay sugan laadahay in dad ku hamiyaan yacni oo iska dhaadhiciyaan in maaragtay dictatoriyad iyo maxaan ku idhahdaa waxaan maaragtay maskaxdaba maaragtay qaadi karin inay dad isaga riyoodaan waa suuragal taasina waxay la mid tahay nin iska dhaadhiciyay inuu maxaan ku idhahdaa keligii intuu baalal yeesho uu duulo marka inta aan maaragtay lagu riyoonin in Soomaaliya lagu xukumo xukun military bal horta waxaa ka horeysa in maxaan ku idhahdaa riyadaasi ay hirgasho waxaa ka horeysa riyada qofku inuu intuu baalal yeesho uu buubo markaasaan dhihi karnaa waa ka suuragal Soomaaliyana in maaragtay uu xukun dictator ah ka taliyo ama uu ka hirgalaba marka Soomaaliya ma joogto xilligaasi Soomaaliya nin walba qorigiisu haystaa ka tuutaha qaba iyo gabadha diraca qabta ee qoriga wadata waa isku mid walba xabad way ku dhacaysaa mid doonaya maxaan ku idhahdaa inuu iska dhintana mar raba qof walba noloshu waa u macaan tahay farmaajo ii dhinta cidii ka yeelaysa de waan arkaynaa ninkii u dhimanaya iyo ninkii u dhaawacmaya de waa sugaynaa bal ninka u dhimanaya farmaajo ee raba inuu kursiga ku hayo ama ku xaxajiyo de waa sax waa arkaynaa bal kulley badan oo iyagu inay u dhintaan raba inuusan maaragtay sii joogin baa jira marka ka raba inuu farmaajo u dhinto haddii la helo ku u dhimanaya in uusan sii jooginna waa la heli marka suuragal kama noqonayso Soomaaliya maxaan ku idhahdaa xukun macangaga iyo anaa sidaan raba iyo nacayb iyo jacayl qof caadiya midna kama shaqeynayo laakiin Soomaaliya waxay rabtaa wax ay heshiis ku tahay in ay maaragtay isugu timaado kuna wada joogto haddii la waayo Soomaha dadkii hore waa lagu kala tegay tanna waa lagu kala tegay aad baa u mahadsan tahay waaye jaamac dabcan waa lagu kala qaybsan yahay aragtidaas oo dadna waxay qabaan in dictatoriyaddu aad u fiican tahay oo Soomaalida waxa kaliya lagu xukumi karaa ay dictatoriyad tahay dadna waa sidaaday qabaan inay aad maaragtay arrintaas ayna macquul ahayn waaye aan ka gudubno guddiga doorashooyinku jaamacow war bay soo saareen dhowr iyo 20 saacadood ka hor maxay ku sheegeen warkaasi waa guddiga dawladdu magacowday maamul goboleedyada qaar ka midna ku darsadeen laakiin laga soo horjeedo nuuro waa mahadsan tahay anoo intaan horta su-aasha u gelin ereygagan dambe sii fiiriye ninka qaba in maaragtay ay dictatoriyaddu fiican tahay iyo qori caaradii in wax lagu maamulo isagu inta qoriga qaato meesha ha aado yuusan maaragtay Facebook iyo YouTube dhexdooda wuxuusan isagu samaynaynin yuusan dadka la hor imaanin adigu cali maxamuud adigu inta qoriga qaadato billa Soomaaliya hor istaag halkaas waxaad dhahdaa waa in dalka dictatorship uu ka taliyo qofkii agtaada soo marna xabad beerka kaga dhufo saasay ku hirgeli kartaa marka cid kale ha u tilmaamin adigu qoriga qaado halka meesha isgee ay balaayo taagan tahay marka dhinaca kale laga fiiriyo guddigiin yacni saraakiishan nabad sugidda ee farmaajo uu guddiga doorashada ku sheegay dee iyaguna waxbay sheegayaan guddi doorashona ma aha waa guddi maxaan ku idhahdaa farmaajo inay meesha nafta ku xaxajiyaan yar maaragtay la maaganaa taasina ma soconayso mar haddii wuxuu waa iska rafasha waa neef la qowracay weeyaan marka waxaan u diray maamul goboleedyadan warqado u diray oo maxaan ku maxay oogu diray ma iyagu tagaan
warqad email lagu diray ma macnaha waa maamul goboleedyada loo diray waxaas oo kale wax dadka lala hor yimaada ma firi ma dadkan inay dadkan dad caqli leh oo ilaahay aqoon iyo cilmi siiyey inay yihiin dadkan kuma xisaabtamayaan waxay ku xisaabtamayaanba sidii dad xayawaan ah oo kale inay la hadlayaan ama ay maaragtay gisi meel ku xaraysan ay u khudbaynayaan يعني waxaan dirnay maxaan ku idhahdaa warqadihii musharaxiinta foomamkii musharaxiinta golaha ayaan u dirnay maxaaba heshiis lagu yahay wax heshiis lagu yahay wax lagu diraa siyaasadii heshiis laguma aha doorashadii heshiis laguma aha guddigii doorashada heshiis laguma aha wax heshiis lagu yahay ma jiraan marka ay dirayaan la leeyahay waxaasan diraynaa maxaaba la isku wareerinba madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya inta uu ka dhimanayo ayar inta inay u kala diraan baa ka fiicnayd laakiin waxaan dirnay in la soo maaragtay form oo nin ku diidayba inuu yimaado meesha oo guddigii doorashada qaybtiisii diiday oo maxaan ku idhahdaa yiri guddigan doorashada waa guddi doorasho oo xaaraan ay yiri maxaan ku idhahdaa systemka wax lagu wado kuma qanacsani ku yiri oo Soomaali oo dhan ay banaanka ka soo taagan tahay yani maxaan ku idhahdaa kiin noocaas ahaba hadana wuxuu rabaa inuu dhaho wax baan diray maya waxaad dhahdaan oo noo sheegtaan farmaajo ayaa madaxweynaha Soomaaliya tan iyo inta uu ka dhiman xataa ma dhimanaya dhaha aqliyadaha maaragtay yani dadka loo hor imaanaysan baa noocaasa marka waxaas wax la isku daaliyo ama maaragtay warkooda oo kale la soo qaata maaha waa wax maaragtay dad yani aad dareemayso waxa meesha loo keensaday inay waxaan oo kale ku hadlaan yaa maaragtay meesha loo keenay marka waxaas ma aha wax bini aadan yani way jaamac qofaan heshiisba kula ahayn inaad dhahdo waxbaan u diray oo doorashaan idhi ii soo diyaari aad baad mahadsantahay jaamacow intayna bal qodobka ka bixin guddigani waxay yidhaheen doorashadii maaragtay foomamkii ay saxiixi lahaayeen musharaxiinta aqalka sare inay buuxiyaan ay waajibka ahayd baanu u diray maamul goboleedyada iyo habraaci doorashada baarlamaanka aqalkiisa sare maamul goboleedyadu saan ognahay waa 5 maamul goboleed laba way diidan yihiin oo iyagu guddigan waxba kumayna darsanin saddex maamul goboleedna waxaynu ognahay guddigan xubnay ku leeyihiin oo way ku qanacsan yihiin sida wax u socdo sida intaan ka ognahay haddii saddexda maamul goboleed bal labadii iyagu hore u diidanaa haba diidanaadana waxbana ku darsanin guddigani saddexda maamul goboleed iyagu yeelanaa haddii ay berri bilaabaan in ay deegaanadooda ka doortaan xubnihii aqalka sare oo ay saddexda maamul goboleed baarlamaanka aqalka sare soo xaadiriyaan maxaa see wax noqonaya ma hadiiba taa la heli karo maxaa shirkii dhuusamareeb iyo shirkii maxaan ku idhaahdaa muqdisho 17 September iyo waxaas oo dhanba maxaa la isaga wareerinayo la iska waalayay oo dadka loo wareer hadii inta qayb meel isugu timaado iyagu waxay rabaan ay samaysan karaan maxaa dadka laga wareerinayo fiiri عقلي باللو باهن يا موقت أنا وحول منهن حيوان منهن ضد إلهي أبورتي أو عقلي يو أقول له وحفهم يو أو مارتاي تصير وحوس على الدريم كران هاي ديبا مارتاي تو لو تلقى إن ضدك لو عيارنا تقدرك أن عيارت كوس عن كرتو هاللو سعودية لكن عقليات السليم كاهي مشي يجيسو منا مارتي منا أقبل يسو قف سوماليا أو سامين كل أرمها سياسة الصومالية أنت وديد ما قبو إن كوح قاري يدو إنت وح ميل مرسطو مصيرك ومضى أي دبر كسارتو أي دب كمارة تايت الدروس يعشرو يجا مسكحدو دا كسو ماحدي إني أميريان وحسو عنيا معها هدي تاسي أي دعايسو لوسا مرهب 1 يا 2 يا 3 يا إنت مارة تاي وح ليسكوما قريب من مقدشو ليسكوما إمادين أو وحاسو لان كما سعودين هل قف أو سامين كل سياسة الصومالية أنت أمريحي صوماليا دورة شديدة يهوش هذا لو مدنا مركا وحي أن لو دنين هدي لهرجلي كرو تنيكي حوق لي آير هاقاتو وحي سهولا غضو هاسكوغو محاولة dadka loo wareerin maxay soo wareerin maxay soo waari haduu farmaajo qabsan karo doorasho oo ku noqdo madaxweyne oo mar kale 4 sano uu ku noqdo Soomaaliya hoggaankeeda dadka inuu wareeriyo ma ahayna mar hore ayay inuu ku dhawaaqay iyadoo aan dadka la kaleerin iyadoo la isnicin iyadoo la isdibsanin iyadoo aan maaragtay mudaharaad iyo rabshad iyo dhiig iyo dhibba aan maaragtay dhicin yay ahayd inuu maaragtay ayr ku dhawaaqdo laakiin aniga aragtida ee muuqata waxaan oo dhan waa shimbirayo hogeesa waa dad maaragtay aan waxna gelin waxna gudin oo la yiri ordaha noqda waxaas waxa ay noqonayaan aan ka warqabin ninka maanta isaga oo maxaa guddi doorashaan ahayle aan tagi karin Kismaayo
ee aan tegi karin maxaan ku idhahdaa to gaalkacyo yuu suu guddi doorasho u yahay mabad meelaha uu leeyahay doorasha laga qabanayaa ma tegi karo suu ku sheegan karaa marka guddi doorasho marba hadduuna tegi karin oo lagaba aqbalsanayn oo lagaba aqoonsanayn yuu guddi doorasho u yahay marka de waa xogaga wadaniga farmaajo guddiga doorashada farmaajo guddiga maxaan ku idhahdaa waa xalinta khilaafaadka farmaajo wuxuu waa waxaas weeyaan guddi doorasho soomaaliyeed ma aha soomaaliya garoway jirtaa halkaa wixii kasoo baxa wax lagu qabsanayaa farmaajona wixiisa ha iska waraaqdo maxaan ku idhahdaa ma runtaa laysla gaari doona hadda waa khayaali iyo been iyo maxaan ku idhahdaa wax aan maaragtay macno lahayn waxa la isu sheegayo weeye waa niman uun inta iska maaragtay meel isugu yimaadaan warqadan facebooka ku dhex tuur warqadan facebooka ku dhex amba facebook hadda madaxweyne waa isaga magacaabi karaa wax macno oo sii weyn oo ay leedahayna ma jirto marka mar haddii farmaajo uu facebook rabo inuu iska magacaabo dee ummadda soomaaliyeed oo dhanna waxaan leenahay nin walba madaxweynaha tahay 8 February anaa idin bilaabi doona insha allahu tacaala oo ku dhawaaqi doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inaan ahay waa haddii nin walba riyadii maaragtay beenta ay u riwaabayso ama uu hirgashan karaba way marka adiguna mar dhow madaxweyne noqonaysaa maxaa diidaya aad u maadsantay way aan ka gudubno jaamac ma aaminsan tahay in Soomaaliya uu waqti ka lumay gaar ahaan arrimaha doorashooyinka marka la yiraahdo inuu waqti ka lumay ma aaminsan tahay hadduu ka lumay yaa ka lumiyey ma Jubbaland iyo ama aan iraahdo ma Axmed Madoobe iyo Dani baa ka lumiyey mise Farmaajo iyo Fahad baa ka lumiyey mise Xasan Sheekh iyo Shariif baa ka lumiyey Soomaaliya waqti doorasho kama lumina 4 sano ka luntay farmaajana ka lumiyey maxaa war kale meesha keenayba nahdo anta aad ma maasantahay way waa aragtidaada aan ka gudubno Garowe ayaan aadaynaa maxaa u dambeeyay shirkii Garowe xaguu wax u maraya shirka kulley waa lagu maaragtay socdaa oo waa de lagu qulqulaya welina muna furmin kulley laakiin wufuudii baa meel walba kale ka tagaysa waxaan arkayay mas'uuliyiin badan iyo xildhibaano baarlamaan iyo maaragtay dad badan oo adigu dadkii wax galka ahaa oo meesha maaragtay kulley tagaya madaxweynayaal hore iyo madaxweynihii maxaan ku eedahay madaxweyne maamul goboleedyo ama madaxweynihii dowladda galmudug يعني ماشي والله قصي قلقلية والله قصي صعدا وماركتاي تو وان أركينا دي كل واحد كسب بحا وفود دي سو دوين تو دي يو دتشين تو دي يو ماركتي معمول كودي بالوجرة إن ميزان وين أو ماركتاي تو عرس بهالك ماركتي دي إن يا كل كتيرة أو رونتي دي لبنتي يو إنده ومد الصومالية بمشي سوت تجي يا بانا ماركتاي تو تهين دونا تهورير كسياسات إمانتا إن الصومالية كتيرة aad baad maasan tahay jaamac ayuu aad wadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan aan kaga hadlaynay dhamaadka waqti xileedkii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal waa golaha shacabka iyo waliba aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waan ogaan doonaa dabcan 27 bishay kaga ekayd oo hadda qadar laga soo gudbay 15 daqiiqo 15 daqiiqo ka hor baarlamaan bay ahayn laakiin haatan waxaad moodaa 15 daqiiqo kadib baarlamaanka Soomaaliya sharciyaddii inay ka dhamaatay ay ku fadhiyeen Villa Hargeysa ee ay ugu talinayeen ummadda Soomaaliyeed waan ogaan doonaa bal sida xaalku noqdo inta aan mar kale kulmi doono waa u mahadcelinayaa jaamac iyo daawadayaasha qiimaha badan ee sida tooska noogala socday Daljira TV iyo waliba SSTV intaan mar kale kulmi doono nabad iyo nooli kulanta